كوسو دوادا تكانكا ألفا بيوتي and nutrition supplement house. تكانكا ألفا وهويغا أتكهلي كرتان وحكستو عافماتك جيركا دا كور وقاضي كرا سيدا فيتامين دا كلا دوان هربلكا كريموينكا مقاركا جيركا غورحين كرا او دمان تود كسميسن وحيابها الدبيعيغا وحا انتاسي كودير فيتامينكا لغا دبا دعاي إلو يقان ريليف او جيركا يكا بوكسين كرا حنون كستو أتكا عبانيسيد فيتامينكان او فافاسن وحاد كداوان كرتان فيديوغا سو سودا waxaana xigi doona Axmed Cali oo ka warrami doona faa'iidooyinka nafaqeynta jirka iyo waxa kula haboon dukaanka Alpha Beauty and Nutrition House waxa uu ku yaalaa laba eber 83 Lawrence Avenue West 2083 Lawrence Avenue West waxaan halkaas kugu diyaaraa بارلين حسن او قعما فرن كوكو سو دوين كرتا هدا دونيسا واحد كلا حريري كرتا تليفون كلامبر كوي هاي لح افر تضوبا لابو ساقال ابر تضوبا افر ساقال سيدين مركالي كوسو دوادا تكانكا ألفا بيوتي and nutrition house.
السلام عليكم أدرتن وحن ميكروفونك كسو دبينينا أحمد علي أو كتخصص علمي نوتريشنك وحن كهدلي دونا موضوع كسابس نفقين تجيرك أو لو يقانو نوتريشن سبلمنتي بسم الله الرحمن الرحيم ومحسنتين soo dhaweynta aad soo dhaweyseen iyo kulankan balaaran oo aad soo qaban qaabiseen oo aan idinku mahad celinayaa marka hore waxaan halkan rabaa inaan ugu mahad celiyo oo qaban qaabada iska lahayd oo dadaalka iska lahaa oo iskuin soo yeertay oo halkan kan abaabulkeeda qayb weyn ka qaadatay gabadha la yiraahdo Barlin Xasan oo hadda naga maqan oo hawl darteed halkan ay suurtagal u noqonaysay halkan ay timaado oo iyada qayb weyn ka qaadatay inay halkan isku soo yeerto oo iyada maamulka ah dukaanka Alpha Group iyo Nutrition Supplement oo ku yaala dhanka Westiga oo Lawrence West ku yaal oo iyada inta badan qaban qaabadeeda iska laha ayaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo laakiin inkastoo aysan ka soo qayb galan kulankeena marka waxaan leeyahay Barlin waad mahadsan tahay waxaan rabaa oo kaleeto inaan ugu mahad celiyo Zahra Xasan iyo Maxamuud iyo Gabriela oo ayagana qaban qaabadeeda qayb ka qaatay iyo inaan halkan ka hadlo mawduuca sida u sheegtay gabadha waxa uu ku saabsan yahay faa'iidooyinka nutrition supplement inkastoo waqtigana uu yar yahay oo David iyo ninka odaga ah ee loo yaqaan Bigawi oo ayagana halkan ka hadli doona iyo Aamino oo idan dhalaanka ka hadli doonta sida qofka uurka leh loo daaweeyo noo la faqeeyo waqtigana uu yahay marka waxaan ka faa'iideysanayaa daqiiqadaha yar oo aan halkan idinkaga mahad celiyo iyo wax yar aan idinkaga yiraahdo waxa supplementiga uu yahay iyo waxaan u baahanahay sida la socotaan cuntada aan cuno laba arrimood ba uu dadku cuntada cunaa oo kaga faa'iideystaa oo cunaa waa mid koowaad waa in qofku energy uu ka helo oo mutaqaana oo baahida hayso ay kaga baxo iyo in laga helo wax loo yaqaan nutrition oo ah in laga helo nafaqo sida la socotaan cuntada aan cuno ma ahan cunto ku baxday si dabiici ku baxday ma waa cunto genetic modified ah waxa laga mariyay wax kasta oo cuntadii nafaqada leedahay ayaa ka baxsan marka cunto ahaan way u muuqataa waad cunaysaa waa dhargaysaa waad soconaysaa laakiin wixii ugu weynaa muhiimka ahaa oo ah inay ku siiso nafaqo ku siiso jirkaaga ayaa meesha ka maran sida la socotaan cuntada markii la soo process gareeyo ama lagu soo shubo qasacada lagu soo shubo ama si caado oo beeraha lagu soo buufiyo chemical oo mataqaana oo herbicides waxa dhamaan ka dhimanaya waa nutritionkii value loo baahnaa ayaa ka dhimanaya marka maxaa inaan haboon waxa weeye inaan jirkeennii nafaqadii u baahnaa oo ka marnaa cuntada ka marantaa waa inaan marka kala nimaanaa marka meel kale waa inaan kala nimaanaa waxaan kala nimaan karnaa waxa weeye waa inaan marka aan nutritionka aan ku dadaalnaa sida aan nafaqeyn jirkeena waa in vitaminska iyo mineralska iyo amino acids aan u baahanahay oo jirkeenu u baahan yahay maalin kasta u baahan yahay waa inaan meel kala nimaanaa maadaama cuntadii aan isku jirin wixii nafaqa loo baahnaa marka maxaa kula haboon waxa weeye in aad raadiso wax kasta oo suurtagal ah oo jirkaaga caafimaadkiisa kor u qaadi kara gaar ahaan nutritionka gaar ahaan vitaminska iyo mineralska waa waxyaabo daily loo baahan yahay jirkaaga uu qaato sida la socotaan haddii qofku uusan helin nafaqadii loo baahnaa jirkiisa waxaa suurtagal ah in cudur kasta uu si dhaqsaha uu jirkiisa ugu dhaco marka waxa weeye nafaqeynta joogtada ah jirkaaga waa defense way waa frontline defense way waxay jirkaaga ay ka difaacaysaa in cudurrada halista ah ee kugu dhacaan ay ka difaacaysaa laakiin hadduusan jirkaaga wax nutrition lahayn waxa u sahlan tahay ama aad u goglan tahay in uu cudurka si sahal jirkaaga ku dhaco
marka cudurro badan baa jira adduunka oo aan halkan kusoo koobi karin. gibigooda waxaa kaga adkaan kartaa waxaa weeye jirkaaga inaad siiso nafaqadii loo baahnaa, difaaci loo baahnaa. marka su-aasha meesha taal waxaa weeye kastoo waqtigu uu yaryahay, su-aasha meesha taal waxaa weeye nooceen marka aan qaadan karnaa oo aan ku habboon inaan jirkeena siino. sidaa la socotaa qofka markuu da-yahay waxaa dhici karta in dheefshiiskiisa ama digestive systemkiisa uusan xamili karin waxyaabahan tabletka ah. waxa u fiican waa dareere ama powder weeye, ma fahmaysa, especially inaad waxyaaba oo jirkaaga si sahal u qaadan karo, nafaqeynta jirkaaga si sahal u gali kara. maadaama in muddo ah aan kusoo dhex jiray arrimaha nutritionka, waxaan ogaaday in waxyaabaha liquidka ah oo dareeraha ama powderka ka samaysan yahay inuu yahay waxa sida dhaqsaa jirkaada u gali kara. research badan oo aanu sameynay waxaan ogaanay oo nafaqeynta loo yaqaan relief oo ah saacada ka samaysan vitamin la isku daray oo marka aad subaxii qasato aad cabto inay yihiin the best way oo jirkaaga aad balance ku samayn karto oo aad cabi karto. maadaama waqtigana uu gaaban yahay waxaan rabaa idinkaga mahad celiyo kulankiinan aad soo qaban qaabiseen. waxaan iga dambeeya David iyo mataqaanaa Magibi oo ayagana mowduucyo kale ka duwan. marka nafaqeyntaas relief waxaad ka heli kartaan waa gabadhan oo halkan qabanqaabadeeda qeyb kala heed waxa weeyaan waa Barlin Xasan. dukaankeedana wuxuu ku yaalaa Lawrence Western, waa 2 Lawrence West, waa Lawrence iyo Western meesha ka jiraan way. iyada la xiriir kartaan, iyada insigiisu waxa hubaal ah in dad badan ay ku bogsoodeen xanuuno badan oo haya markay vitaminkaas qaateen inay ku bogsoodeen. marka waa iga talo, waa iga waano. marka ku dadaala caafimaadkiina, gaar ahaan nafaqeynta waa laga maarmaan weeye, jirkiina wax u baahan yahay. marka hadalkayga meeshaan kusoo gabagabeynaya waxaan rabaa markaan inaan celiyo qabanqaabayaashii halkan isku soo qabanqaabiyey, gabdhihii Aamina iyo Saciida iyo Habboon qayb weyn ka qaadatay in kulankan isku keenyeerto. sidoo kale waxaan marnaba aan iloobi karin oo maanta hawshan iyo qarashkan iyo hawshan abaabulkeedii gashay waxa weeyaan waa Barlin Xasan oo maanta ka cudur daaratay inaysan noo imaan karin hawl darteeda. marka waxaan idin leeyahay mahadsanidin, dadaalkiina meeshaas ka sii wad haddii alla idmo.